رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. السلام عليكم ورحمة الله. علمك iyo xalqadeeni saddexaad ee mawduuceeni sida loogu guuleysto nolosha adduunyada iyo aakhiro. haddaba hore aynu soconno barnaamijkeena. cilmiga qaybihiisa kala duwan sida kan diiniga ah iyo kan ku salaysan maadiga waa arrin laf dhabar u ah aadamaha horumarkiisa. waxaana mudan rag iyo dumar in ay aqoon raadsadaan ilaa inta ay ka dhimanayaan. haddaba sidaa daraaddeed maadaama uu mawduuceenu ku saabsan yahay muhiimadda uu leeyahay cilmigu uu leeyahay horumarka aadamaha iyo bulshooyinka guud ahaan, waxaynu isku dayi doonaa inaan waxoogaha ka iftiimino sida bulshada aqoonta leh iyo tan aan aqoonta lahayn ee dunida ku dhaqan ay ugu kala tegsan yihiin horumarka dhinac walba. haddaba haddii aan waxoogaha dib u milicsano xadaaradihii dunida soo maray ee iskaga dambeeyey, sida ay sheegeen culimmada taariikhda inay jirtay xilli ay ugu magac dareen Stone Age ama qarnigii dhagaxa, oo aadamuhu aaladda keliya ee uu isticmaalo ay ahayd tan dhagaxa. waxaa kaloo ay sheegeen in aadamaha uu soo maray xilli ay ugu magac dareen Dark Ages ama qarniyadii mugdiga ahaa. xadaaradaha waaweyn ee dunida soo maray sida faraacinta, Greegii, Farisiintii, Roomaankii, Shiinihii, Jabaanka waxay dunida ka soo dhigeen oo ay ku soo kordhiyeen aqoon dhaxalgal ah. waxaa kale oo dunida soo maray xadaaradihii islaamka oo wax badan oo horumar ah dhinac walbana taabanaya ku soo kordhiyay dunida, gaar ahaan xagga cilmiga sayniska sida daawada, xisaabta iyo wixii la mida. waxaa kaloo ay dunida ka tirtirtay diinta islaamku dulmigii iyo mugdigii ay ku sugnaayeen aadamuhu, waxayna ahayd xadaaradii ugu weyneed ee dunida soo martay inta taariikhda la og yahay. haddii aan haddaba u soo noqonno xilligan casriga ee aan ku jirno oo ah markii ugu horeysay ee aadamuhu ku tallaabsado horumar, waxay ahayd xilligii loogu magac daray Industrial Revolution amba xilligii kacaankii warshadaha oo ka bilaabmay dalka Ingiriiska. kacaanka warshaduhuna wuxuu bilaabmay qarnigii 18aad ilaa 19aad, waxaana lagu tilmaamaa inuu ahaa xilli kala guur ah oo isbedel hor leh uu ka dhacay dunida, gaar ahaan Yurubta. isbedeladaasi waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhinacyada beeraha, macdanta, warshadaha, isgaarsiinta iyo weliba tiknoolajiyadda casriga ah, taas oo raad weyn ku yeelatay isbedelka dhaqan dhaqaale iyo xaaladaha dhaqan ee bulsho. iyadoo markii ugu horeysay kacaanka warshaduhu uu ka bilaabmay boqortooyada Ingiriiska, dabadeedna uu ku fiday qaaradda Yurub, waqooyiga Ameerika iyo guud ahaan dunida inteeda kale. sidaa daraaddeed waxaa lagu tilmaamaa Industrial Revolution amba kacaankii warshadaha inay ahayd xilligii kala guurka ee isbedelka taariikhda aadamaha, taasoo raad weyn ku yeelatay nolol maalmeedkii amba inkamkii iyo dakhligii qofka soo gelayay oo 10 jibaarmay. dhinaca kale, iyadoo dunidu ay ku sii siqaysay xagga iyo isbedelada horumarka, waxa kale oo jiray dibadhac xoog leh oo ku yimid bulshooyin badan sida kuwa reer galbeedku ay ku tilmaamaan dunida saddexaad, taas oo ay ka mid tahay bulshadeena islaamka, gaar ahaan Soomaalida geeska ku nool. haddii aan wax yar ka tilmaamo dibadhac ku yimid bulshadeena, waxa ka mid ah shirqoolo badan oo ay ka dambeeyeen wadamada reer galbeedku, kaasoo lagu mujaxaabinayay waxay ula baxeen iyagu dunida saddexaad. reer Yurub waxay dunida ka bilaabeen guumaysi u suurageliyay inay cunsuriyaan dhinac walba oo bulshada kale oo ay ka mid yihiin bulshooyinkii kale oo ay ka mid ahaayeen bulshadeena, iyaga oo kala dagaalamay xagga horumarka, gaar ahaan xagga cilmiga oo cunsur muhiim ah u ah bulshada iyo guud ahaan dalka horumarkiisa.
shirqoolkii ay maleegeen reer galbeedku waxay dhaxal siisay bulshooyin badan oo dunida ku nool oo Soomaaliduna ka mid tahay dib u dhac xoog leh oo kaga yimaada dhinac walba oo ay ka mid tahay aqoonta sida waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha iyo guud ahaan madax banaanida siyaasadeed ee dalkaasi ay leeyihiin muhiimadda ay waxbarashadu leedahay haddaynu tusaale u soo qaadano waxaan ogeyn nin la yiraahdo Olusegun Obasanjo oo ah madaxweynaha Nigeria inuu socdaal ku yimi Somaliland waxaanu kula taliyay madaxda Somaliland in ay waxbarashada hoose dhexe la tayeeyo oo waxbarashada lagu dadaalo oo ummadda wax la baro waayo wuxuu garan karaa ma oran karnaa ninkaasi muhiimadda uu leeyahay cilmigu iyo sida horumarka loogu gaaray wuxuu soo xukumay isagu dalka Nigeria oo aan ognahay maanta inuu shidaal la soo baxay walow musuqmaasuq badan jireen laakiin se inaga marka diyo Soomaalida marka dalka Soomaalida ay ka koobayn maanta iyo marka la agdhiga Nigeria farqi weyn u dhaxeeyo horumar ballan ay gaareen haddaba shirqooladii ay maleegeen reer galbeedku waxay dhaxal siisay bulshooyin badan oo dunida ku nool dib u dhac xoog leh oo kaga yimaada dhinac walba oo ka mid ay tahay aqoonta sida waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha iyo guud ahaan madax banaanida dalkaasi ee dalalkani ay leeyihiin haddaba waxa muhiim ah in lagu dadaalo waxbarashada shakhsiyan iyo madaxda mas'uuliyadda shicibka haysa inay ummadda cilmi iyo aqoon baraan haddaba haddii aan u soo noqono sababta keentay in reer galbeedku shirqooladii dhayarta ah ay u maleegaan waxa suura geliyay inay guuleysteen inay aqoonta ku guuleysteen oo ay nolosha ku guuleysteen bimacnaa adduunyadooda horumar ay gaareen ayaa u suura gelisay inay guuleystaan jawaabtu waxay tahay nuglaashuhu wuxuu ka yimid bulshadeena oo badankeedu ku sugnayd jahal iyo aqoon daro taasoo dhalisay inay iska difaaci kari waydo dabinada ay dhigeen reer galbeedku sababtoo ah marka bulshada aqoonta ay leedahay waxa adag in si fudud looga adkaado amba lagu qasbo waxayna raali ka ahayn haddii aan tusaale u soo qaadano dagaalkii labaad ee dunida 1945 markii Mareykanku uu ku riday Hiroshima iyo Nagasaki nuclear bombka waxa uu baabiyay wadanka Japan labada magaalo wuxuuna Mareykanku uu ku qasbay inuu isdhiibto ay Japan buu ku qasbay waxayna ay ku qasabtay Japan inay isdhiibto sababtoo ah waxa lagaga adkaaday oo lagaga itaal roonaaday dagaalkii marka loo eego dhanka awoodda ciidanka laakiin xaqiiq ahaan ismay dhiibin Japanisku sababtaas oo bulshada Japan ku waxay ahayd sababtoo ah bulshada Japan ku waxay ahayd mid aqoon leh kolka suuragalna way noqon weyday in maskaxda laga guumeysto waxa kaloo Japan ay ku guuleysatay muddo ka yar 30 sano inay noqoto dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan taana waxa uu suura geliyay bulshadooda oo ahayd mid aqoon leh fadliguna wuxuu noqonayaa cilmiga imaka Japan horumar bay dhinacyo badan ka gaadhay hadday noqoto waxa leeyahay maanta nuclear hadday doonayso inay samaysato Japan wuxuu ku qaadanayaa dhowr cisho gudahood buu ku qaadanayaa way asbaabihii uu saamixi lahaa oo haysataa biyo badan shidaal badan cilmigii aqoontii macdantii uraniumka ahayd nuclearka laga sameeyay wuxuu dhan way haysataa waxa kale haddaba aan jecelahay inaan tusaale u soo qaato saynisyahanka caanka ah ee reer Pakistan Abdul Qadir Khan ee sameeyay awoodda atomikada ee Pakistan caalimkaasi wuxuu joogi jiray wadan ka mid ah wadamada reer Yurub gaar ahaan Holland oo uu ka shaqeyn jiray mid ka mid ah warshadaha dalkaasi uu lahaa wuxuuna ku guuleystay inuu maanta Pakistan ka dhigo wadan leh awoodda nuclearka sida daraadeed waxa lagu magac daray abaha tiknoolajiyada nuclearka dalka Pakistan sababtoo ah wuxuu noqday shakhsi badilay taariikhda wadanka Pakistan ugu caalimkan waxa uu Pakistan oo dadkeedu aanay dhanayn 200 oo milyuun ka badbaadiyay in India oo dadkeedu kor u dhaafayaan 1 bilyan ahna cadowga koobaad ee Pakistan sababtu waa aqoonta uu soo bartay oo uga faa'iideeyay dalkiisa taasoo cabsi gelisay dalka inta leeg waayo badidu waxba ma tarayso haddii ay xaaladu gaadho in la isku adeegsado hubka wax gumaada ee nuclearka maanta qadar waynu garanaa waa dal yar
oo aad u yar tusaalahaan doon soo qaadana Qatar waa dal aad u yar dadku ku fadhiya maanta dhulka Soomaalidu dadka ku fadhida waa dhul aad u weyn laakiinse Qatar ba haddana dhinac walba awood military noqotay ka awood weyn marka dad badni iyo dhul badni iyo waxa saxo mataraan mar ayaa lagu gaaraa guul dad iskhilaafsan oo kala sii jeeda oo kala googo'ayna oo iyagu isku lidiyana waxa ka qurux badan dal yaro sida Qatar oo kala nabad ku nool horumar gaaray saameyn ku la caalamka ka faa'iideystay wax soo saarkiisa iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala natural resources ka Ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala marka waxa loo baahan yahay inaan hadaba wax barashada iyo cilmiga iyo aqoonteenu ku dadaalno dalalka islaamku waa dalalka ugu qaniisan haday batahay iyo haday dhul tahayba waxa loo baahan yahay cilmiga iyo aqoontii lagaga faa'iideysan lahaa marka hadii ay shakhsi tahayna qofkii wax barta guul buu naftiisa garsiinaya hadaba waxa loo baahan yahay wax barashada ku dadaalno ayaa taasana aad iyo aad u muhiima adduunyadana aan ku guuleysanayna aakhirana aan ku guuleysanayna qofka mara dariiqo ku dalbaayo cilmina Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu fududeeyaa dariiqo uu ku geli lahaa jannada marka dhamaantiin waxaan ugu talinaynaa cilmiga ku dadaalno intaan ku kulmi doono muuqaalka xigana waxaan idinkaga tagayaa assalamu alaykum wa rahmatullah